السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaad iga daawanaysid waa Abna Official. magacayga waa Cabdiraxmaan. fadlan jalkaad ayaa ku tubta subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga. muuqaalkan waxaa ugu hadlaynaa waa maxay sababta ay ganacsato badan ugu baqaan guusha iyo sida ay u gudbi karaan. maxay dadku ugu baqaan guusha? dadka guuleysta guuldarada kuma cusba. huwaal inay marba qofkan haddii uu guur u gaaro ay ka timid guuldarooyin badan oo u soo dhawr adeegay oo u soo rafaaday. laakiin taariikhda guusha waxaa ka buuxo caqabado badan. waxaad ogtahay guulaha waaweyni inay yimaadaan khasaaro waaweyn kadib. waa nasiib daro inaad guushaada cabsi awgeed ugu joogsato, waayo intaad cabsanaysid waxba ma qabsan kartid. marka aad si adag ugu shaqaynayso shay, macno ma samaynayso inay sidoo kale tahay waxa aad ka baqayso. raaxo baa ku jirta joogitaanka meesha hadda aad joogto haddii aadan wax qabad la imaanin. waxba ma qabanaysid oo meel aad ka joogtaayo jawi degan aad soo jirtaa. laakiin guusha waxay u baahan tahay inaad rafaadaa martid, diditid, dhibtootid, qarash kaa baxo, lacag kaa baxo, caqli kaa baxo, xoog kaa baxo, khasaare aad la kulantid, ma garatay, xanuuno kala duwan aad la kulantid. guush intaasay u baahan tahay. waxaad mar hore dareemaysaa guul gaar ah, waxaadna ogtahay inaad taas sii wadi karto adigoo si fudud u sii wadaayo samaynta waxa aad samaynayso. si kastaba ahaatee, si loo gaaro heerka xiga waa inaad ka tagtaa meesha hadda aad joogto. guushu waxay kaaga baahan doontaa inaad dhibsato raadinta dhammaan waxyaalaha xiisaha leh iyo inaad naftaada qasabto. in noloshaadu isbedesho waxay u baahan tahay isbedel ku yimaada qaybo ka mid ah noloshaada oo ay adag tahay in la maareeyo. maxaa laga yeelayaa cabsida guusha? waa inaad hadda barataa tafaashiisha noloshaada oo aad go'aansatid waxa aad rabto inaad tagto. waa inaad ka tagtaa waxyaabo badan oo macno leh. go'aamadaasi waxay noqon karaan kuwo aad u adag, xitaa curyaanimo. dareenadan ayaa ah kuwa u horseedaya cabsida guusha. ma bedeli kartid noloshaada haddii aadan bedelin. marka aad ku riyooto mustaqbalkaada, kuma riyoonaysid xanuunka ay kugu qaadanayso inaad halkaas gaadho. laakiin xanuunku waa qaybo laga maarmaan ah oo ka mid ah habka isbedelka. waxay ku siinaysaa fursad aad wax badan ugu barato naftaada, waxaad rabto iyo meesha aad rabto inaad aado. waxay ku ogolaanaysaa meel baran oo aad naftaada ku tiirsato halkii aad dad kale ku tiirsanaa lahayd. mar kasta oo aad isku duubto naftaada waa mar waliba aad wax qabsan lahayd. casharkan qiimaha badan waxaa laga bartaa aargoosatada waxay leedahay qolof dibadda ah oo adag oo siinaya inay si ammaan ah ay ku noolaato. qolofka aargoosatada ayaa waxaa ku yimid isbedel, wuxuu noqday mid sii yaraanaya oo fiiqmaya. aargoosatadu waxay dareemaysaa inaysan sidii hore wax u jirin oo isbedel jiro, kadib waa la qabsanaysaa isbedelkaas. kadib waxay ogaanaysaa in qolfo kuwii hore ka adag ay u soo baxeen. si aad u guulaysato waa inaad sidoo kale horumartaa. dhismayaashaagii hore kuma ogolaan doonaan inaad gaadho heerarka cusub ee aad ku riyoonayso. waa inaad iska ilowdaa qofkii aad ahaan jirtay oo aad iska daysaa wax allaale wixii mar damba ku adeegin oo aan ka talinayn guushaada iyo horumarkaaga. waqti u qaado inaad keligaa la ahaato fikradahaada oo wax badan la qabso cidda aad tahay iyo wax kuu iftiiminayo. isticmaal waqtigaaga adigoo meel keliya fadhiisanayo ka fikiraayo mustaqbalkaaga iyo sidaad yeeli lahayd. noloshaada inaad ka dhabayso hamiga aad leedahay waa mid mar waliba adiga ku sugaysa. waxaan rajeynaa inaad wax badan ka faa'iido muuqaalka. fadlan channelkaasi aad ku cusubtahay subscribe saar si ku soo gaara muuqaalada xiga. sidoo kale booqo website-ka adigoo booqanaya profile-ka YouTube-ka ama description-ka muuqaalka hoostiisa. waxyaabo badan ka faa'iideysta ka heli doontaa insha Allah. channelka subscribe saar si ku soo gaaraan muuqaalada xiga insha Allah.